ololaha khayriga ee kaalmee kuwani uu gudoomiyaha ka yahay saxafi samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa 200 qoys oo go'ma waxay magaalada Burco ugu qaybiyeen raashinka afrada bisha barakeysan ee Ramadaan kaas oo ka koobnaa bariis, daqiiq, sonkor, timir iyo saliid. qaybinta deeqda raashinka ay ku tabaruceen walaalo muxsiniin oo ku kala nool dalka dibadiisa iyo gudihiisaba ayaa waxa baahi weyn u qabay dadkan loogu tabarucay. samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo ka hadlay qaybinta raashinkan afrada ah ayaa faahfaahin ka bixiyay waxaana uu tilmaamay waa 8 Ramadaan waa 1442 hijriya munaasabadu waa raashin qaybin tirada qoysaska maanta aanu halkan raashinka ugu qaybinaynaa waxa ay gaarayaan 200 oo qoys qadarka iyo qaybaha raashinku waxa ay ka kooban yihiin waa bariis iyo daqiiq iyo sonkor iyo timir iyo saliid haddii aan si faahfaahiyana waxa uu raashinku ka kooban yahay 25 kilogram oo bariis ah iyo 25 kilogram oo daqiiq ah iyo 25 kilogram oo sonkor ah iyo tanag timira iyo caagad saliid ah ayuu qoyskiiba qaadanaya qiimaha raashinka halkan yaalla ee aanu qaybinaynaa waxa uu nagu joogaa ama uu ku kacay lacag gaaraysa $10,400 oo aanu u qaybinayno 200 oo qoys qoyskiiba waxaanu ugu soo iibinay raashin lacag gaaraysa $250 waa $250 lagu dhuftay 200 waxa ay noqonaysaa $10,400 waa inta qiimaha raashinka uu nagu joogaa yaa bixiyay hadaba lacagahan waxa bixiyay lacagahan aan raashinka ku soo iibinay ee aanu qaybinayno qoysaska waxa bixiyay dad samafalayaal ah oo dacallada caalamka jooga gudaha iyo dibadda ha u badnaadaan ilaahay khayr ha ku abaalmariyo dadkaasi waxa ay ka jawaabeen baaq aan u soo jeedinay oo ahaa in aynu ramadaantan aynu culayska saarno oo u oleelayno aynu quudino qoysaska agoomaha ah ee baahan ee aan dadka waxba weydiisan dadyawgaasi waxa weeye barnaamijka kaalmee kuwan ama samafalka kaalmee kuwan ayay ku soo hagaajiyeen annaguna maanta ayaanu bixinay lacagahaas raashinkan loo qaybiyay 200 qoys ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshe ololaha khayriga ee kaalmee kuwan ay agoomaha ku quudinayaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan coldoon ayaa ka warbixiyay qorshahaas iyo waxa uu qabyada ah qorshahaas waa bilow waa wajigii koobaad waana magaaladii koobaad waana intii koobaad oo 200 ugu horeeyay waxa jiri doona deegaamo kale oo Soomaaliyeed ayaanu geyn doonaa oo aanu ku qaybin doonaa inta qura ma aha intana soo gaadhay maanta waxa weeye lacagta 10,000 iyo dheeraadka waan bixinaynaa waxaanu kaloo insha Allah gaari doonaa deegaamo kale oo ay baahi ka jirto waxaanu gaari doonaa dadyow kale oo baahan baanu gaari doonaa insha Allah biidnillahi alkariim oo aanu gaarsiin doonaa waxa ayna soo gaarsiiyeen walaalaha iyo samafalayaasha insha Allah biidnillahi alkariim waana toddobaadkii ugu horeeyay Ramadaan maanta waa 8 waa toddobaadkii ugu horeeyay inta waxaanu ku raagnay ururinta lacagaha iyo inaanu xullo dadkii baahnaa gabagabadii samafale coldoon ayaa ugu baaqay bulshada muxsiniinta inay ku garab istaagaan gaarista yoolka ololaha kaalmee kuwan ee bisha barakeysan ee Ramadaan si gaar ah waxa uu fariin ugu diray dad ladan oo uu sheegay inay cidhiidhi ku yihiin bulshada danyarta ee deeqdan la gaarsiin lahaa war dadka ladan oo u daaya dadka baahan hana soo gaaraan dadka wax bixinaya dadka ladan oo waxa cidhiidhina dadka baahan dhibaatada ugu badan ee haysatay waxa weeye kala sooc iyo kala shaandhaynta oo adag mararka qaarkood inaad ogaatid dadkani ma baahan yihiin waxa cidhiidhiyay dadkii baahnaa waxa cidhiidhiyay dad ladan oo waxa weeye meel kasta raashin ka urursanaya iyagoo ladan oo cidhiidhiya dadkii masaakiinta ah ee aan garanaynba farsamada dadka waxay ku weydiistaan farsamadaha ay hay'adaha ku gaadhaan dadkaas waxaanu leenahay waar ka daaya baan leenahay ilaahay ka baqa waxa kale oo aanu leenahay dadka kalena aanu leenahay dadka wax bixinayana ha ku dadaalaan inay gaarsiiyaan dadkii baahnaa ha ku dadaalaan waxa weeye intaasaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkiina ma dhammaan waxa weeye ramadaantana waanu wadaynaa ku dadaala waxa weeye qorshahayagu sidii weeye qorshahayagu waa sidii baaqayagu waa sidii waxa weeye nala ololeeya nagala qayb qaata si aanu annaguna muxuu ahay u fulino barnaamijka annagu fuliyayaal baan nahay marka
waxa gudaha dadka gudaha oo bixintoodu kooban tahay gaar ahaan marka waxaan soo gaaray markaan eegno waxaan leenahay idinkuna bixiya dadka dibadda joogana jazaakumullahu khayr halka ka sii labalaba qof baa u bixinina is urursada magaalo iyo asxaab iyo koox is urursada lacagtu markay buurnaatana na soo gaarsiiyo si aan u soo gaarsiino ramadaanta intii baahnayd ogaadana waxa weeye ramadaanta in khayrka in badan labalaabayo ololaha khayriga ee kaalmay kuwan uu gudoomiyaha ka yahay saxafi samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa inta badan xooga saara kaalmeynta dadka danyarta ee ku duruufaysan deegaanada Soomaalida wa Khalid Bakayle wararka fogaanada xorta ee Man TV Burco.